Cunista beedka waxay kor u qaadaa caafimaadka qofka. Haddii uu jecleen qofka inuu cuno beedka ama ukunta, waxaa ka maqan fitamiino badan iyo faa'iidooyin badan. Haddaba daawade, waxaan kuu sheegi doonaa dhowr faa'iidooyin oo ay leedahay cunista ukunta. Intaan u gudagelin faa'iidooyinka ay leedahay ukunta, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaaro channelkan aad subscribe noo saarto. Faa'iidada koowaad ee leedahay cunista beedka waxaa waaye qofka cuna beedka wuxuu ka badbaadayaa xanuunada ku dhaca wadnaha. Faa'iidada labaad ee leedahay cunista beedka. Cunista beedka ama ukunta waxaa laga helaa fitamiino daruuri u ah caafimaadka dadka, isla markaana keena in caafimaadka qofku noqdo mid aad u wanaagsan. Waxaana ka mid ah fitamiinadaas laba fitamiin ugu caansan, fitamiin A iyo fitamiin B2, waxayna muhiim u yihiin koritaanka unugyada. Sidaa daraaddeed, waxaa qofka u wanaagsan in uu badsado cunista beedka. Faa'iidada saddexaad ee leedahay cunista beedka, wuxuu nafaqo siiyaa muruqyada. Beedka oo ka mid ah ilaha ugu fiican ee cuntooyinka nafaqada laga helo waxa uu muruqyada siiyaa tamar iyo nafaqo, sababtoo ah waxaa ku jirta fitamiin B12 kaas oo muruqyada ka caawiya inay si fiican u shaqeeyaan. Faa'iidada afraad ee leedahay cunista beedka, haweenka cuna caddi badan oo beed waxay 24% ka badbaadaan kansarka naasaha ku dhaca, sida lagu xaqiijiyay daraasad dhowaan la soo saaray. Waxaana beedka qofka siiyaa maadada ama fitamiin la yiraahdo choline oo jidhka ka difaaca kansarka ku dhaca. Maadada choline waxay ku badan tahay qaybta huruudda ee beedka. Sidaa daraaddeed, waa inaad beedka dhammaantii qaadataa, cuntadana aad ku darsataa si aad faa'iido u hesho. Faa'iidada shanaad ee leedahay cunista beedka, maskaxda qofka wuu koriyaa beedka. Beedka waxa uu qofka ka dhigaa mid xasuustiisa aad u fiican tahay, waayo wuxuu nafaqo badan siiyaa maskaxda, taas oo qofka ka caawinaysa in maskaxdiisu kaydiso macluumaad badan, xasuus ahaan noqoto mid aad u wanaagsan. Waxaana beedka digaaga laga helo ku badan maadada omega-3 fatty, taasoo awood maskax kor u qaada. Beedka digaaga inta badan waxaa laga helaa fitamiin E, kaas oo dhakhaatiirtu ama dadka nafaqada cuntada ku xeel dheer aaminsan yihiin in qofka ka difaaco cudurrada aasaasiga ah ee keena inuu qofku caruuroobo ama isku dhex daato.